السلام عليكم asxaabtada dhamaantiin meel walba caalamka aad ka joogtiin waxa idin leeyahay maalin wacan wanaagsan isku soo noqod wanaagsan muddo dheer kadib haddii aad caafimaad qabto alxamdulillah anna waan caafimaad qabaa dhammaantiin waxa idin leeyahay isku soo noqosho wanaagsan maanta waxa inoo wadaa barnaamij aad u cajiib ah aadna aad u xiisaynayso haddii aad channelkan ku cusubtaa fadlan subscribe saar muuqaalkan like dhe siina share gareyso u gaaro walaalaha qalbiga sida adigoo kale maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay tariimada caalamka wadooyinka ay maraan iyo sida ay u kala cajiibsan yihiin waaw marba hadduu tareen niyadaada ku soo dhaco waxaa soo xasuusanaysaa filmaanta hindiga kuwooda ugu khatarsan okay haddana waxaan sii gudagalaynaa barnaamijkeena nala socda dhammaantiinaba okay lambarka 7 waxaa ku jira wadada la magac baxday The Diet Royal waxayna ku taalaa Burma wadadani tareen wuu maraa laakiin waa wado halisteeda wadata waxaana u soo daawasho taga dalxiisayaal ka imaadaan Burma mararka qaarkoodna ayaa laga yaabaa in uu tareenka ka baxo wadadii uu ku socday uuna si toos ah u galo biyaha lambarka 6 waxaa ku jira Meklong Railway Market waxaana ku yaalaa Thailand wadadan ayaa ah wada aad u cajiib ah isla markii tareenku uu marana waxay noqonaysaa meeshaan meel suuq ah oo laga adeegto dad badan ay ka dukaameystaan wow lambarka 5 waxaa ku jira Line Wazir Viaduct waxayna ku taalaa dalka Switzerland wadadan aad u jeedo waa wada barafkeeda aan kala joogsi lahayn mar waliba baraf ay tahay xilliyada qaarna waxay dhibaato ku dhigtaa dadka boostajada ku suga tareenka taasoo keenaysa in uu wadada xiro baraf aad u fara badan dadkaasna ay wada barafowaan lambarka 4 waxaa ku jira Dafilis oo ku yaala dalka Ecuador waa wada la yaab leh wadadaasi oo ah wada aad u khalkhaloocan wadadaasi markay tareemada marayaan oo ah wada aad u cabsi badan oo ay ka cabsanayaan dadka tareenka saaran halkan aad u jeedo waxa la dhahaa Asamina maxay ku taala dalka Japan tani wada lama dhihi karo waa buundo aad u halis ah waxaana ku ageelan buuraha kuwooda ugu dheer iyo kuwa falkaanada marba haddii aad falkaan maqasho niyadaada buurtan ayaa ku soo dhacaysa waxayna soo gaarnay buundada la magac baxday Rameshwaran oo ku taala dalka India wadadan tareen ayaa dhex maraysa badda khirkeeda taasoo dhibaato u geysan karta ama biyo ugu galigal shacabka tareenka dhexdiisa ayagoo saaran weli wadadan aad u jeedo markay badda xamaasadeedu kacsan tahay cid mari karta ma laha wadada dhan waxaa xiray hidka badda wadadan aad u jeedo waxaa la dhahaa Railway waxayna ku taalaa dalka India wixii hore waa been wadadan ayaa ah wadada ugu yaabka badan been markaa ku dhahay ha u malayn inuu barnaamijka ban yahay kaas waxay u lalaabantahay sida kaadiga dibiga oo kale ama saad u taqaanaa sida maska oo kale ayay u khalkhaloocan tahay waana wada aad u yaab badan wadadani yaabkeeda ayaad maqashay maadan maqan halisteeda wadadani waa wada aad u halis badan boqolkiiba 70 tareemada waa ay ku gadoomaan sida halista ah halkaasoo ka dhalan kara khasaarooyin aad u weyn haddii aad barnaamijkeena ku raaxaystay fadlan channelka dadka cusubta subscribe saar muuqaalkana like dhe siina share garay si uu u gaaro walaalaha qalbiga sida adigoo kale haddaba barnaamijka su'aal aan ka weydiiyey wadadee kugu yaabka badneed aad ka daawatay muuqaalkan fadlan adigoo mahadsan haddii aad jawaabtaasi heesoo imo xagga faalooyinka ee commenteska waxaan inoo ballanaa muuqaalka xigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh